دول أدان دول عندنا هايس وحنا لقى قبا كان إسلام دال اللي كانوا مي صعاه وح لقى قبا كرا وإن دا ويو هبر هذا اللي دبروا هدان وح لقى إذا لقى بن الله تبرع halkan waa xiradii geela ma aha xirada xalane qiyaastii 40 geela ayay hoy u tahay laakiin 4 kamida waa la xalaaleeyay halka 11 kale ay ku jiraan jajabka hoobiyayaal ay soo tuureen maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab sida lagu yaqiinay kooxda waxa ay ka dhigtay geelan iyo maamo nuura maxamed dicisow saraakiil ka tirsan saaxiibada taageera Soomaaliya ee ku jira xirada xalane dhaawaca gabdho shan ah tirada ay ku darsadeen kuwaas oo hoygooda uu ugu tagay mid kamid ah hoobiyaashii ujeeda la'aanta ah oo ay soo tuureen argagixisada Abu Yuusuf Cali Maxamed daqiiqado ka hor ayuu halkan ku dhaafay xaaskiisa maamo nuuro waxaase joogtii uu maqlay ay u noqotay uurxumo kaga dambeysay xirada geelisa dadka deegaanka ayaa maamo nuuro geeyay xarun caafimaad laakiin Abu Yuusuf xaaskiisa geeri ayuu kaga daba tagay nabadan kuwa barisanay ma ahaanay timid وهل ساعة برعمل أنا العنا سيقد عندنا المدى الكدقة اللي تتصنغد وقمايوها إنسان يقولي كان غير حدا عاي أرسلان ما غير حكود عاي اللي يدري واسون ردي يدو يقدر يريد كبح سموك موتان زارتان أنا مت موتان كتب قاردي كالكالة دي اللي نروح وكسيب qadarta Allah ma moogana laakiin waxa uu ciirsi bidayaa dawladiisa iyo dadkiisa كيلا واحد كجرا فريق يا كجرا فريق زون لقى بحنا بكسومة أنا كنا تبرن هذا الفريق كبحنا محين وقيلوا بدر كوعنا يا بل كوعنا يا هذا سبح أن لو يجي نول أبد فروا مركه من يتبرع دوله لقى هلا أيوه هذا اللي قلنا يا هو قيل فريق أنا هذا فريق كاس ولقى لا تعالوا وحواي ودولة جرت من أي حد يالها قلنا قال ورنا قدوب اسكتك دولة كلو جرت واي حاجة dariska maamo nuuro waxay tabayaan kaalin ay haysteen in ka badan 10 sano يا nuuro qof dawladdu shaqeeyaysan ma ahayd dad xoolo dhaqataa ahayd يا nuuro aad muddo 14 sano 13 sano ka yareeyaan darisna waligeed bal ma arag 13 sano cunug saqiir xataa idoo la murmay dadka dariska waa u roonad wixii laga soo doonto laga way ma jirin qof dariska la socoto maanta wixii la iska raba dhiibayso dariska wuxuu ku soo qoro dhiibayso wixii talo la isugu yimaado yeelayso ay ahayd inkastoo ay jiraan goobo kale oo hoobiyayaal hadaf la'aan ah ku dhaceen haddana Allah ayaa shartooda fashiliyay sida malcamad quraan oo ay ciidamada amniga ka qaadeen hoobiyaashii habaw ahaa ee aan weli qarxin halkan waa xaafad kale oo uu hoobiye habaw ah ugu tagay gurigooda gabdho shan ah oo 3 kamid ah nabadgelyo ahaan halkan ugu soo barakacay iyaga oo ka soo tagay deegaanka Janaale ka hor inta aysan xuleen militariga Soomaaliya waxa uu wada gaarsiiyay firir siman oo weli qaarkood aan laga bixin sida ay ku taliyeen dhaqaatiirta caafimaadka wala ma ogaan iika waxay ka batay meesha uu rabay ma sheey karaan qof masaakiin oo danteed oo socod u daaqaysa ah oo gurigeed jiifta oo qolkeed wax uu umaaday amar Ilaahay dartiis oo uu dhacay ma ogi wixii laga wato ma sheey kari Yusra Cabdirazaaq waxa ay iga sheekeynaysaa sida uu ku gaaray dhaawaca oo aan suuragal ahayn meelaha uu ka gaaray inaan idinla wadaago anoo dhowraya asturnaanta gabdhaheena suuxi halka saac camalay markii wax soo dhacay tiijo qolka ku jiro waa jiifan أنا جيف كي ما هو بيو على سوق جنب الكيسة جار نعم أنت يا قارك يا جرب كان مركي إيه ودع بس لمركي وراك درين أنا حنونك يسوق عيبه وراك درين وراك سوق عيس لمركي وأكسو عرر قري بنانك وصور isbitaal ali qaad ani iyo gabdhaha kale oo walaalay isbitaal aan wal qaad isbitaal Madiina aan wal geey hal habeen soo bari shal 6 saac li soo saar isbitaal sidoo kale gabdho walaalo ay la ahayd ayuu dhaawacan gaaray
daran maxaa carabkeyga waa kagay ani ma faantay afkeyga carabku aruurtay ani isaaska xaalo ya ilmihii ani dhan maskaxdii ma u fadhin ilaa xataa maskaxdii ma fadhisaad hadda waxaan sheegay oo xataa markaan hadda aan sheegay markaan ku celi kari ya ilaa hadda baa ya waxaan sameey wax kale ma kala gasaani saacadaan joog gurigan xataa wax ma sameysano ilmaha naxtinka iyo waxaan ka qaaday maskaxda xanuunka iyo waxaan ka qaaday maama Farxiya Cabdi Guudle inkastoo ay la dalaadhacayso duruufta dhaqaale ee cibro gaar ah haddana habaarqaba ayaa hoobiye u soo geliyay gurigoodii lagu dhisay allow sahalka innaga ay naga sugayaan inaan dib ugu dhisno gurigooda kuna caawino qoyskan sidii ay u heli lahaayeen caafimaad dhammaystiran u tagi banaanka iyadoo dhiig buuxoosar gabadha ilmaa kale ma arkin ba ani la gabadhana dhiig buuxoosar lay umaad ani gabadhaas banaanka ku dhiig buuxoosar lay iidan uroor ani iidan uroor aan dacas la'aanteeda gabsar la'aanteeda waxaan saasneen banaanka ninkii hadaba isaar shaashka isaar gabsarta isaar ma sheegi kari ma faantay gabadhiga ne muslimta gabadha islaanta mehan taaganaan dhay muslim ma laho aan dhay ikeen hal bajaaj ikeen cunugtaana dhiig buuxoosar iibada igeeyo isbitaalka iyo ilmihii kale inta wixii dharaantiis ee wixii dhiigis buuxooyo oo daw socda markaa ark hore isii naxabani ilmihii sidii cidaanito daraskii imaadana bajaajada ii saareena isbitaalka lagu geeyay marka isbitaal gabdhaha shalay qayb marka alkeen daraad qayb alkeen maanta gabdhaana la keenay 6 saac la soo bixiyay hal 20 bir kadib al soo celiya leh nina cabira oo jiro dariska kale macna dariska ku caawiyo marka daraska bajaajada waxa gabdhaha daraska ay caawiyeen ha gabdhaha kale maxay ahaayeen gabdhaha kale gabdhaan amaanta firtida gaartay wajiga madaxa cajarka gacmanka halna dushi waaye halna feerta inaaska lab dhaxdiis ilaa had wiil ku jira isbitaalka marka la geeyay waxa la soo celiyo mid 20 beri daawashna loo soo qoray 20 beri dib al soo celiyo mid kale intana cajarka iyo lugta intaas way 3 gabdho baraha xiriirka u qaabilsan al-shabaab dacayaadka raqiiska ayaa isku dayay inay marin habaabiyaan indhaha iyo dhagaheena waxa ayna sidii caadada iyo xishood la'aanta ahayd ku faaneen geelan iyo gabdhahan inay ahaayeen saraakiil ku sugan xerada xalana oo ajaanib ah taarka booliiska saldhigga wadajir ayaan weydiinay intii ay maalintaas diiwaan geliyeen khasaaraha guud waxa ayna ii sheegeen dhimashada Allah u naxariistay maamo Nuura Maxamed Dhicisow dhaawaca 5 gabdhood iyo geela wili dhaawac ah oo 4 ka mid ah dhaawac ah oo daran ay xalaaleysteen dadkoodii waa tiro 15 geel ah Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho